waa maalin ka duwan maalmihii soo maray hooyo Shamso ama Shankaroon hadba sida aad u garanayso iyo ilmahan yar ee ay korinayso. labadooduba saaka kama muuqdo daal marka laga reebo in dhabankoodu uu dhalaalayo. aroornimadan hooyadan iyo wiilkan ay waqtiga badan gelisay uma jarmaadayaan hosbitaalka, hase ahaatee waxay ku socdaan hooyga iyo qoyska cusub ee ilmahan yar noloshiisa ka faala qaaday. waa bilowga nolol cusub oo haldoorkan labadii dhashay la garan waayay u bilaabanaysa, waxayna hoga tusaaleynaysaa in dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwo aan dhibaatada isku eegan iskuna naxariista waqtiyada adag. la taliye sare Maxamed Shuuriye Nuur oo uurka ka ogsoon mudnaanta caruurta ayaa socdaalkan guusha ku dhamaanaya gardaadinaya. hadda waanu nimid guriga uu ku noolaan doono heybadlahan da'da yar, waxa uu la kulmay soo dhaweyn, kalgacayl iyo naxariis waalidnimo oo ay tustay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dalka ahna hooyo Soomaaliyeed oo og qiimaha caruurtu leeyihiin, Khadiijo Maxamed Diiriye. markaan arkay Munaasir Maxamed oo soo geliyay Shankaroon iyo wiilkeedan yarka ah iyo duruufaha ay ula wareegtay sababaha keenay saqiirkan yarka ah ayaan dareenkaygu wuxuu isiiyay inaan Shankaroon la xiriiro. maanta waa wada joognaa, waxay ii sheegtay ilaa muddo 4 bilooda inay nuunaha yarka ah haysay, marka oraal looga dharagsan yahay inuu ahaa cunug bannaanka la soo dhigay oo meel good ah laga helay. waxaan rabaa dhowr su'aal aan hore u weydiiyey Shankaroon inaan hadda ku celiyo. Shankaroon horta gabadhayda waa hooyo 2 caruur haysata. xamli waaga dartiis ee culayska iyo damqashadii marka hore u qaaday inaan nooga faallooto oon su'aalahaas weydiiyo. 4 bilood kadib hooyo maxaa kugu kalifay inaad hayn weyso? waxay ugu kalifartaa caruurteedu waa ordayaan, dugsiga iyo aadsanaan, iskool iyo aadaan, isaga iyo ma ordaayo, dugsiga iskoolna ma aadayo. cunugu waa cunug xanuunsan, qoortin ma ceshanayo. marka waxaa sidaa qof adiga ka fiican oo isbitaal geenay dibad u qaaday dal meel kasta waa la soo maraani, laakiin qofkaaga si fiican oo dibadaha u qaadanaya inuu helo bal social media iska dhig Munaasir waa. marka sidee u soo bandhigay cunugan maadaama intaas waa haysanayo, hadduu soconaayo oo hadduu fariisanayo ilmahaas wuxuu qabo oo la qabi lahaay, laakiin cunuga hadduu xanuunsan yahay mustaqbal la'aan kuma sii hayn karo. wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye waxay sheegtay in cunugan ay iyadu qaadayso mas'uuliyadiisa wixii maanta ka dambeeya. waa war farxad gelinaya dhammaan dadka muxsiniinta ah ee sheekada ilmahan yar la socday. cadde maxaa haysaa? kanade urdumaa ka soo kacday? yaa ma jiiftay abbaar? yaa hooyo haye wax sheekee hal lagaa maqle? yaa daawinada le maqlaale wax lagaa maqlaa ke kan maxaa waay? ya inta yaa kaa jir? inta maxaa kaa jir? xagga maxaa kaa jir? halkan maxaa kaa jira? insha allah waxaan rajaynaa Shankaroon waa isla soconaynaa mar kasta. adaa hooyo ah oo naga hooyooyinkiis waa nahay aad iyo aad. hooyada koowaad way baxda, hooyada labaad adaa ah, hooyada saddexaadana ah. maasha allah hooyo. maasha allah. waxaan ku faraxsanahay in hadda labadii taliye ee u dhiibay Shankaroon marka hore ku ogaan ayaan la xiriirnay.
dadka telefoonka waa haddaan iselmay waana la socodsiiyey haddii ilaahay yiraa inaan cunuga shankaroon kala wareegay waxaan ilaahay rajaynayaa duruufaha nolosheena ku xeeran oo dhan inuu ilaahay noo sakhiro ajar iyo xasanaad hooyo allah kaa siiyo marka laga soo tago in nolosha wiilkan yar wasiiraddu la wareegtay haddana walaasheen shankaroon waxay qaadatay door aan caadi ahayn dadkuna ay ilaabi doonin ilmahan yar waxaa hadda hooyo iyo aabbe u noqonaya wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye oo qolkeeda uu la jiifan doono ayna xanaanayn doonto sida ay ballan qaaday si kastaba mahadi waxay u wada sugnaatay alla weyne sidoo kale waxaa mahad leh dadka qalbiga wanaagsan ee dal iyo dibadba ka damqaday xaaladda wiilkaas yar ee waalidkii dhalay ay dayaceen dhammaanteenba haddii aan wada jirno guushu waa mid la gaarayo guulaysta